Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ciiduhu waxay ku kala fiican yihiin beerashada, oo ciidda qaniga ku ah nafaqada dalag fiican ayaa ka soo baxa. Haddaba ciidda haddii muddo badan wax lagu beerayay ayaa nafaqadeedu yaraataa, taasoo keenta inaan dalag fiicani ka soo bixin. Haddaba qarnigii 19aad 1800-ladii ayaa Yurubiyaanku waxay arkeen dadka ku dhaqnaa deegaano ka tirsan Peru, Koonfurta Ameerika, oo macdan jasiiradaha iyo dhulka xeebaha ah ka buuxda intay soo gurtaan dhulka ay rabaan inay beertaan ku nafaqaynayay. Waxa ay soo guranayeen waxay ahayd saxarada shimbiraha badda ee halkaas aadka ugu badan oo ciidoo kala noqotay, oo markii lagu daro meesha la beeranayo nafaqo siisa ciidda. Haraadiga shimbirahaas ayaa waxaa ku badan macdanta fosfaatka iyo nitrogen oo dhirtu aad ugu baahan tahay. Waxaana loo yaqaanay guano, iyadoo waagaas Peru ka dhigtay waddan qani ah oo waddamo badan u dhoofin jirtay macdanta laga helay. Haddaba markii dowladaha Yurubiyaanku ogaadeen faa'iidada ay guanoodu leedahay, ayaa waxay bilaabeen inay qabsadaan jasiiradaha badaha caalamka ku faafsan, maadaama shimbiruhu aad u buuxiyaan oo haraadi fara badan uga tageen. Sannadii 1858 ayaa Maraykanku waxa uu sameeyey sharci loogu magac daray Guano Islands Act, oo dhigayay in jasiirad aan cidi aysan lahayn oo muwaadin Maraykana uu ka helo macdantan ay dowladda Maraykanku la wareegayso. 6 jasiiradood oo Maraykanku sidaa ku qabsaday ayaa gacantiisa ku jira ilaa maanta. Haddaba waddamada ka faa'iiday shimbirahaas iyo waxa ay ka tageen ayaa waxaa ka mid ah jasiiradda Nauru oo Australia ka xigta waqooyi bari. Waddankan ayaa xornimadiisa qaatay sannadii 1968. Waa waddanka saddexaad ee adduunka ugu dhulka yar, dadkiisuna aysan ka badnayn 12,000, iyadoo sannadii 2014 lagu qiyaasay 11,000 oo keliya. Haddaba Nauru markii laga helay macdanta fosfaatka iyadoo dadkeedu aad u yar yihiin, ayaa waxay ka dhigtay waddanka adduunka ugu qanisan sannadihii 70aadkii. Waddamada dadkoodu yar yihiin oo ganacsi horumarsan ama shidaal iyo macdan fara badan laga helo, ayaa sannad walba waxa ay galaan waddamada adduunka ugu qanisan marka la fiiriyo GDP per capita. Waddamadaas waxaa ka mid ah Qatar iyo Luxembourg. Nauru lacagtaas faraha badan ee ka soo gashay macdanta fosfaatka si fiican umaysan maarayn, iyadoo mashruucyo fashilmay gelisay sida inay asaastay sharikad duulimaad oo ay u soo gaday diyaarado fara badan oo u duulaysay waddamada dariska la ah. Laakiin maadaama ay dadkeedu yar yihiin, dad badanna aysan booqan waddankan, ayaa diyaaradaheedu waxa ay kici jireen iyagoo faaruqa oo kuraasta 80% ay maran tahay. Waxa kale oo ay lacagta ku kharash garaysay dabaqyo dhaadheer oo ay ka dhistay waddamada dariska la ah, sida dabaqa Nauru House oo ku yaala Melbourne, Australia, oo la dhammaystiray 1977, isagoo markaasi noqday dabaqa ugu dheer magaalada Melbourne. Waxa kale oo ay maalgelisay mashruucyo fashilmay oo dhaqaale malaayiin gaaraya ay kaga burbureen, sida samaynta filimo malaayiin dollar ay ku baxday oo aysan waxba ka soo noqon. Haddaba Nauru oo dhulkeedu aad u yar yahay, ayaa macdantaasi markay ka dhamaatay ama gabaabsiga ku noqotay, waxa ay noqotay inay mufallisto oo ay aad ugu tiirsanaato macaawinada ay ka hesho dowladda Australia. Iyada oo sannadii 2001 heshiis kula gashay Australia inay dadka raba in si sharci darro ay halkaasi ku tagaan la geeyo waddankan xerooyin ku yaala. taa beddelkeedana ay Australia sannad walba siiso malaayiin dollar. Haddaba Nauru ayaa hadda waxa ay ku tiirsan tahay macaawimada ay ka hesho Australia iyo Taiwan iyo dowladaha kale, iyo kheyraadka badda ee ay ka iibiso maraakiibta wax jilaabta. Intaasi ha noogu joogto macluumaadkii koobnaa ee aan ka soo arooriyay waddankan. Intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullah.